Guddoonka aqalka sare iyo madaxweynaha Puntland oo kulan yeeshay. Madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo ay weheliyaan labada guddoomiye ku-xigeen ee aqalka sare. Kulanka oo ka dhacay guriga guddoomiyaha aqalka sare ayaa loogu hadlay guud ahaan xaaladda uu dalka marayo, waxaana guddoonka aqalka sare oo madaxweynaha ku bogaadiyey doorkiisa muhiimka ah ee samata bixinta dalka. Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay qodobadii ka soo baxay shirkii magaalada Muqdisho ku dhex maray madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada. Guddoonka aqalka sare ayaa siyaabo kala duwan kulamo ula qaatay madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ee magaalada Muqdisho u yimid ka qaybgalka shirkii arrimaha doorashada dalka lagu hadlayay.